عشر كانوا عشر عشر كيشان تبناد ويان negative with to be negative with to be marka verb to be ayaan soo baranay verb to be waxaan dhahnay waxa weeyaan waxa lagu sheegaa waxa aad tahay ayaa lagu sheegaa Soomaa waxaan ahay Maxamuud waxaan ahay arday waxaan ahay macallin waxaan ahay nin wax la mid adi qofku wuxuu yahay ayaa lagu sheegaa waa ahaansho waaye verb to be waxa la dhahaa ahaansho waxa tahay weeyaan marka waxaadan ahaynin markaad sheegay sidoo kale negative weeyaan marka negative ayaa noqonaysa ama diidmo ayaa noqonaysa waxaadan ahayn markaad waxaadan ahayn sheegaysid waxa la dhahay add not after to be to make the sentence negative si aad jumlada negative uga dhigto waxaad ku dartaa not ku dar after to be ga wixii ka dambeeyo marka to be ga waa kana marka am weeyaan tusaale ahaan oo kale I am a farmer aniga beeraley ayaan ahay farmer waa beeraley weeyaan marka tahay marka waxaadan ahaynin marka sheegay sidoo kale waxa leedahay I am not a doctor not ayaa marka soo raacsanaysaa I am not a doctor me waa fahanteena rajaynaya marka tusaalayaasha kale aan isla fiirino marka Kabar Academy oo ah application luqadda Ingiriiska aad si fudud uga baran karayso adigoo isticmaalayno manhaj caalami ah oo la dhaho CEFR Commonwealth European Framework of Reference for Languages ayaa la dhahaa iyo isbuuc walbana 2 jeer ayaa live la soo galaa haddii aad xiiseynayso applicationka linkigiisa qaybta comment descriptionka waad ka heli karaysaa insha Allah su'aalayaasha kale marka he is not an adult ma ahan qof qaangaar adult waa qof weyn waa qof qaangaar ayaa adult la he is not an adult qof qaangaar ma they are not engineers engineer ma kuwani they are not engineers marka not ayaa mar walba soo raacay ka soo hormar ku soo xijinaysa to be ga marka qortid kadib not ayaa ku soo qoraysaa we are not actors actorin mihi ama actorial manihin It is not 5 o'clock. Shanti ma ahan. It is not a pig. Dofar ma ahan. It is not a pig. Dofar ma ahan. Waa digaag weeyaan. It is not my bag. Borsadeeda ma ahan. It is not my bag. Sharcigeeda marka waa kana. Sharcigeeda waxa weeyaan subject iyo verbka markaad qorto verbka marka waxaan rabaa marka inaan ku sheego verb ama ficil markii lagu dhahayo kale wuxuu noqon karaa hadii oo main verb oo meesha ku jirin oo kale eat iyo do iyo maxaa la dhahaye watch iyo wax la mid ah oo ku jirin oo kale booska verbka waxa bantalayo verb to be ayaa matalayo verb to be ayaa la dhahaa ficilka ahaanshaha weeyaan waa ficil ahaansho weeyaan laakiin asaga ficil la sameeynaayo ma ahan waxa aad tahay waa waxa aad tahay weeyaan waxa aad sameynaysid ma ahan marka sidaas u faham marka I am, she is, we are, not le raacinaysaa marka kadibna jumlada inteeda kale ayaad qoranaysaa waa fahanteena rajaynaya marka waxay noogu xigo markay short form laga dhigayo ama la soo gaabinayo contracted form markii laga dhigayo markii contracted form laga dhigayo laba nooc ayaa loo sameyn karaa you are not a doctor ayay ahayd waxaa ka dhigi kartaa marka you're not inaad dhahdo you-da iyo arta inaad israaciso ama you-da aad gooni u dhigto arta iyo not-da israaciso You're not a doctor. Kana waxa waaye you aren't a doctor. Marka aren't ayay noqonaysaa dhawaqeedu. You aren't a doctor. Doctor matid. Ama you aren't a doctor. Doctor matid. Alright. Waa fahanteena rajaynaya. Qaybta ku xigta u gudbayna marka. Alright. And tusaalayaashan isla fiirina marka. It's not a pencil. Qalin ma ahan. It's not a pencil. Ama it isn't a pencil. Alright. Waa ujeedaa waxa dhan waa fahmi kartaan. He is, ama he isn't. We are, we aren't. It's not. She is not. She is not. She isn't. They are not. And they aren't. Waa fahmi kartaan rajaynaya marka cashirka halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa waa cashir gaaban oo aad u xiiso badan ayuu ahay u diyaar garooba casharada xigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh